بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيو وأهل أبو فرحان إسماعيل مالتي معدة دمان أمد الصوماليات مالك استيجوبتو سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن كنا وراهي أن إذا كلها ضيام كنا وراهي مقالة هرقيسة إن شاء الله تعالى وحن ما أنت هالكن إذا كدوا بدونا لما تحود أو كوكوبن أو جيران ليراه سفر كي من أيه iyo geerar la yiraahdo dalka waa Mahuraan Soomaalida maanta waxa haysata dhibaatooyin aad u fara badan dhibaatooyinka waxa kamid ah meelaha qaar in dadkii dhalinyaradii aan fikirkooda cabiri karin iyo dhibaatooyin aad u fara badan oo kale la isugu daray waxaan kamid ah dhalinyarta kamid ah dhalinyarada la caburiyo waxa jirta aniga inaan muddo bil ah aan xabsi ku jiray oo aan u mutaystay xabsigaasna aan ugu jiray inaan aragtidayda iyo waxaan anigu aaminsanahay iyo fikirkeyga waxaan qabay aan sida quruxda badan loo arkayo aan u hadlo taas waxay sababtay in la igu yiraahdo hadlin waraaqaha adarkaysan la iga saxeexo suldaankeyga iyo reerkeyga laga saxeexay inaan hadli karin oo aan waxba oran karin aanan anigu fikirkeyga haba yaraatay aanan cabiri karin sida awoodeed ana waxaan go'aansaday in aan suldaankeyga cumaamada ka ridin bal aan baxo oo aan tago meel maxaan ku lahaa fikirkeyga iyo waxaan anigu aaminsanahay saxda oo hadlayo aan ku cabiri karo insha Allah halkan waqtigan idinla hadlayana insha Allah safar baan insha Allah safarkeyga gabaygaas aan idin sheegayo dhulka Soomaaliya oo dhammaan ku mari doona insha Allah mar haddaan meesh maxaan ku lahay caynkaas tahay qofku dhalinyarta aan fikirkiisa cabiri karaan waxaan go'aansaday inaan uga tago oo aan aado meel aan fikradayda iyo waxa quruxda badan leh anigu jecelahay aan maxaan ku cabiri karo fikirkeyga imigana safarkeyga caawa ayaan bilaabay hadii la yiraahdo waxaan ka soo bilaabay marka hore Buurama wajahna Gibiley Hargeysa caawa jooga oo niyadna garaw uga sii baxay insha Allah hadii la yiraahdo nin qof walba halka uu ku dhashay uu jecel yahay anigu maanta waxaan kulley Soomaali magacyo loo wada bixiyay dalkii Soomaali magacyo loo wada bixiyay Soomaaliland maanta hadda ku noolahay Soomaaliland waxaan maxaan ku raahdaa ganacsi baan ayaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay maxaan ku raahdaa qoys baan ku leeyahay halkii aan ku dhashay caruurtidii joogan oo oorideedii joogto oo hooyadii joogto oo maxaan ku raahdaa hantideedii taalo maxaan ku raahdaa inaan ku noolaado maxaan ku raahdaa qof kasta uu dareemaya kulley maxaan ku raahdaa wuxuu ka jecel yahay inuu jirin laakiin taas mid taa waxa igu qasbaysaa waxay tahay qof maxaan ku raahdaa hadii leeyahay waa qof xabsi ku jira qofna xabsi inuu ku jiro uma adkeysan karo oo taas aniga maanta ay haysata dhalinyaro aad u fara badan way haysataa qaar ba xabsiyada ugu jira maanta waxa jirta maanta dhalinyaradii wax mustaqbal maanta ku haysata ma jirto inay way tahriibtay oo badaha ku daadatay iyo saxaraha ku dhamaatay inayna suuqyada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ay bilaa camal la joogaan inayna hoostaasi ka wada guuxaysa waxay sameyn doontaba hoostaasi ka wada guuxaysa kala doorka u baxaan dhibta cid ay haysataa waa dhalinyaradii Soomaalida dhalinyarada hablo iyo dumar iyo rag bay midoogaan dhibaatadan haysata ay ka midoogaan ay iska dul qaadaan nimankan maxaan ku raahdaa burcada siyaasiyiinta sheeganaya maxaan ku raahdaa intay dalkoodii burburiyeen maantana rabayna mustaqbalkeena ay burburiyaan doonayaan Oyalay wabalay oyalay wabalay oyalay السلام عليكم سرا فرقارين بان سبعسكي سبيلا غبايو دادكونا ويغا سوغايا سويغو بلغيستوي سمالو علنكيني ويغا سمدايو صوبنا ودنكينا ساحدي سود قومبان قلبينا كصيرين يران كصفايوي sabadkan aan hadda joogan ka socdaalaya maantuna waa qoysinteediyo soonihi birbiraade meelna suufii joogo sidka geela yaqaanoon waxda uga sokaynin jaahilaan saxahaynoy oy qabyaaladu saaqdayo silcinaya dadkiisa
samayso muddo been ku sabaanayo dhalintiin socdaashayo ku dhamaatay saxaariyo inta suuqyada joogta saakaan camal haynin saf jihaad u diyaara masamo arrintiisu waa geedaan sallahaynay sabankan maantaan joognana Soomaalisu hilowdayo dunidii la socdaano sagaashameeyo malyuunba sin kastay naga yaalo inagoon soddon gaadhinba uu siyaaste danaysti dadkeenii kala saarayo inba gooni u soocayo sanadayna hodaayayo ummada ka siraadato saacadooda dhammaatayo socon waayu xoodiyo kuwa saylac ku nooliyo mooyaalaya sinteediyo saddexdeeni maqnaaba u yaqiinsadaysaani in dalkood kala soocmin oon dantood kala soocmin oon dalkood kala soocaminay safarkaygii mideeyaan sabciyo ka sokeeyaya safarkaygii mideeyaan anna saaka bilaabaya Soomaalidilkiinba soo duceeya walaandhe hooyalay Soomaali hadalkaygiyo hawraartaydan dhegayso dalku waa mahuraano hoygayaynu galayniyo waa hogaan xidhanaynayo waa hagow sharafeedo hanti waaye duleedo ummad loogu hagaage waa inaan hagardaamiyo hanta qowga ka dhowranay halina wayga canaano hurdadaynu ku raagnayo caalamkii ka habsaanaye habsan baanahay weyno hasheeni lixdamaadkii intiyo hoomka adduunka haykal weyn ku lahaydo hadalkeed soconayaan u hanayna dugaago haybadiin qarankeenan maanta haybinaynaaye hal haddaynu ahaano gacmaha iswada haysta waynu hawshan dhexdeena kalgacaylku hagayno wax walo hadafkeeniba waynu hirayaanay waynu hirayaane sidii ganya habaysano heensiheedin la saarayo heetiiniisa cadceed dhac ama gool hilba cuurtayo kiyo hiifaya dooga duhurgeed hadhacweyniyo hadhsanaya diraaco hawa raaxa qaatay annamaansada hadashayo habsamaanu daliishayo waan ka hayla turxaana midina way hadhsanayday boqorkii halabuurkiyo intimaacado hadalkiisiyo hawrartuu tirinaayo ilaahay badu siiyeyba horaba waayo u sheegaye inta reer hebeloobiyo reer haraati dameeriyo inahayba sacleegiyo qurunkoos milanayno inagoo hana qaadniyo hagaagteenu ka dheerdhe hooyalay walay hooyalay